bismillahi rahmaani rahiim casharka waxaan ku baran doonaa trigonometric functions ka xaglaha guud xaglihii gaarka ahaa ee special angles 0 30 45 kuwii noocaas oo soo baranay hadda laakiin waxa lagu siin doonaa xagla guud tusaale ahaan point waa lagu siin doonaa -3 iyo 4 oo xy ah kadib waxa la weydiin doonaa trigonometric functions ka dhamaan sida sin cosine iyo reciprocal koodi ama waxa la sameyn doonaa xagal baa lagu siin doonaa 330 oo kala 330 xaglihii gaarka ahaa ee special angles ka kuma jirto general angles ka kamid tahay waxaan lagu diri doonaa trigonometric functions ki tusaale 270 ama 270 degrees baa lagu siin doonaa kadib waxa lagu weydiin doonaa trigonometric functions ki wana xusuusan tahay koordinateedii sida loo bullet gareyn jiray tusaale hadda pointiga hadii lagu siiyo -47 oo bullet garee lagu dhaw maxaa sameynaysaa horta ugu horeyn qiimaha hore waa x qiimaha dambana waa y -4 macnaheedu waa maxay x waa halka ay -4 ka tahay y na ay 7 ka tahay x xagee way marka negative ka tahay bidix way ka tahay -4 iyo meesha y ay 7 ka tahay waa bartaa way halka u fiirso -4 waa kaga beegan halka 7 baa kaga beegan oo way ah hadii la dhaho tusaale ahaan 35 macnaheedu waa maxay labadooda waa positive way meesha x ay 3 ka tahay y na ay ka tahay 5 waa bartaa 2 -4 macnaheedu waa maxay meesha x ay 2 ka tahay positive 2 y na ay ka tahay -4 waa bartaa hadii la dhaho tusaale ahaan -5 -6 labadiiba wada negative way way -5 meesha ay x ka tahay oo halkaas iyo -6 meesha ay ka tahay y oo bartaa hadii cagsiga lagu weydiiyo oo la dhaho bartaa sheeg barkulanadeeda maxaa dhahaysaa barta horta waxay dul dhacday x hadii marka barta ay dul dhacdo x macnaheedu qiimaha y waa 0 way sababtoo korna uma kicin hoosna uma aynan degin qiimaha 1 ka marka x ka iska leh y na waa 0 way waa ka 1 x ka iska leh hadii la dhaho tusaale ahaan halka sheeg halka ka waa maxay y way dul dhacday y hadii barta dul dhacdo x qiimaheedu waa 0 way okay halkana waa negative ka tahay y da hoos goorta loo soo degay negative tahay okay 0 x ta iyo y oo negative 1 ka soo qaad marka halka diilinta ama radius ka in rotation sameeyo oo barta ka soo tago halka yimi xagal ba sameeymaysa sida ujeedada xagasha marka xagee ku sameeymaysa ma x bay ku xigaysaa mise y dhinaca y marna xigmaysa xagasha mar walba waxay ku xigi doontaa x halka marka triangle baa nagu sameeyay hadii barta lagu weydiiyo oo lagu dhaho marka ya x ah ya y ah ka taagan dash ka ama bluega ah iyo qaybta hoose madow ka x ka y ah kan taagan waxaan naqaanaa waa y weeye kan chiefana waa maxay waa x weeye tusaale hadii marka lagu dhaho 3 4 way qiimayaashooda kala sheeg 3 x ka iska leh y-dana waa maxay 4 ka leedahay 3 halkan oo iman doona y-dana waa maxay 4 way yeelan doontaa aan tusaalayaasha u galno tusaalaha koowaad horta geeskan waxaa noogu qoran trigonometric functions ki kuwii reciprocalka ahaa iyo kuwii quotientiga ahaa kuwa hoose ee quotientiga aan isticmaali doonaa inta ugu badan tusaalahan koowaad waxaana la yiri dhammaan trigonometric functions ka wada raadi adoo adeegsanaya pointiga ah -3 4 -3 4 macnaheedu waa maxay waa meesha x ay ka tahay -3 x bidixeeda way y na ay ka tahay +4 oo kor ah waa halka barta qiyaas ah okay xagasha marka xagee ku sameeymaysa xagasha haday waxaan soo niray mar walba waxay ku xigi doontaa x ta okay oo halkaas halka marka saddex xagal baa nagu sameeyay marka labadan qiimo kala si qiimaha x waa -3 way halkaas ku sameeyay doona qiimaha taaga ana waa qiimihii y oo 4 ah saddex xagal baa halkan nagu sameeyay waxaan raadinaynaa marka dhinaca saddexaad ah hypotenuse-ka fataagi baan adeegsan doonaa Pythagorean waxaan naqanaa marka labada dhinac ay yaryar oo la isku wergareeyo la isku diray in la mid tahay dhinaca dheer qosna la isku wergareeyo okay -3 la isku wergareeyo lagu diray 4 la isku wergareeyay waxa la mid tahay dhinaca naga maqan si u soo qaado c square okay ka shaqeeyay marka ugu dambeyn marka square root ka saarto waxa ku soo bixi doona c in la mid tahay positive ama -5 hypotenuse-ka mar walba waa positive way okay waa 5 marka hypotenuse-kan keeba marka opposite keeba adjacent ah 5 waa naqanaa hypotenuse-ki way xagashan fiiri marka hadda cagaarka kala ah xagasha waxa ka soo horjeedo opposite ku ah 4 sida awad opposite way waxa daris la oo ku xiga -3 waa adjacent way soo ka toban adeegsan doonaa marka sin aan raadina sin theta waxa la mid tahay opposite hypotenuse oo ah 4 loo qaybiyay 5 cosine aan raadino cosine waxa lagu helaa adjacent of hypotenuse okay adjacent waxa inoo ah -3 hypotenuse kana waa 5 way -3 over 5 okay tangentiga waxa lagu helaa opposite of adjacent opposite waxa inoo ah 4 adjacent waxa inoo ah -3 4 over -3 reciprocal kan raadinayna reciprocalka sin reciprocalkeedu waa cosecant way cosecant waa maxay waa sin oo la rabay 1 over sin way sin qiimaheeda 4 over 5 buu ahaa rug 5 over 4 cosine reciprocalkeedu waa secant way
rog marka secant waxa la mid tahay 5 over negative 3 tangent waxa reciprocal ku ah oo rogaal ku ah cotangent okay cotangent theta waxa la mid tahay tan u rog waa negative 3 over 4 marka kuwa kan reciprocal kooda hadaa ku wareerto mid walba waxay leedahay co way leedahay tusaale ahaan sin marka tiraahdo waxa reciprocal ku ah cosine goorta tiraahdo co kale cagsi kuma aha mid walba co way leedahay okay tangent waa 3 co laakiin cosine goorta tiraahdo co kale dhimis waa secant way tusaalaha labaad waxaan la sheegay pointiga 5 iyo negative 12 okay x baa waxay tahay marka 5 oo waa midig way marka y baa laakiin waxay tahay negative waa hoos okay waa barta marka okay xagasha xagee dhacaysa waxaan iri xagasha mar walba waxay ku xigsan doontaa horizontal line-ka ama x axis-ka x axis-kana waa kan way halkaas dhici doontaa halka waxaan ugu sameysay saddex xagal ya 5 ya negative 2 alif 5 waxa ah x negative 2 alifna waa maxay waa y-da way saddex xagalkana marka hypotenuse-ka ama shakaalka waa naga maqan fatagi baan adeegsanayna 5 oo la square gareeyo lagu daray negative 2 alif oo la square gareeyo waxa la mid tahay dhinaca naga maqan oo si la square gareeyo 5 square gareeyo waa 25 way waxa ku dartaa 144 waxa noqonaysaa 169 square root ka saar waxa ku soo baxay positive iyo negative 13 hypotenuse waxaan ir mar walba waa positive marka waa positive 13 way okay ya ah opposite ya se ah adjacent 13 waa hypotenuse way xagasha fiiri marka xagasha waxa ka soo horjeeda opposite ku ah negative 2 alif waxa adjacent ku ah oo ku xiga oo daris la ah 5 okay marka aan raadino sin theta ku hormar okay sin theta waxa la mid tahay opposite over hypotenuse oo ah negative 2 alif over 13 okay cosine theta waxa la mid tahay adjacent over hypotenuse adjacent waxa ku ah 5 waxa noqonaysaa marka 5 over 13 tangent waxa la mid tahay theta opposite over adjacent la mid ah negative 2 alif over 5 reciprocal kan u gelinaa waa rogeena kaliya marka sin waxa reciprocal ku ah baan iri secant oo ah 13 over negative 2 alif waxa reciprocal ku ah secant okay secant theta waxa la mid tahay marka 13 over 5 kuwana rogeena tangent waxa reciprocal ku ah cotangent okay cotangent theta waxa la mid tahay 5 over 12 tusaalaha saddexaad uu ka duwan yahay waxaana la siiyay sin theta ratio-geeda waxaan naqaanaa sin theta in lagu helo opposite of hypotenuse sidaas marka koreeyaha sare waa opposite-kii ka hooseeyahana waa maxay waa hypotenuse-ki way negative 4 waa opposite 5 na waa hypotenuse waxaan leeyahay marka waa quadrant 4 maxaa loola jeedaa macnaheedu waxa weeye ratio-gan ama sin theta hadda waxa dhacdaa waaxda afraad maxaa loo jeednaa afar qaybood ama afar waax uu ka kooban yahay koo waxa ah tana ah laba yaa noqonaya marka waxa loo socdaa counter clockwise ama lead saacad wareeg macnaheedu waa maxay saacada dhanka u socota ma ay dhinaca kana u soconaa dhinaca bidix baa u soconaysa marka okay kan haduu koob ku yahay kan waa laba kan waa saddex afar waa halka marka halkaas ku samaysmaya kadib xagee xagashu dhacaysa marka xagashu waxay dhacdaa mar walba oo ay ku xigtaa x oo halkaas waxa ku samaysmaya marka saddex xagalka marka hypotenuse-kiisana waa haysanaa waxaan kaloo haysanaa opposite side-ka waa hypotenuse-ka aan ku hormarnaa hypotenuse-ka waa ka gududan waa 5 way hadaan soo sheegnay xagashan ka soo horjeedkeeda waa xariiqda buluugan weeye waa negative 4 sababta negative 4 maxay tahay way hoos baa loo socdaa okay marka saddex xagalka waa right angle triangle weeye aan raadina marka dhinaca saddexaad ee naga maqan negative 4 la square gareeyay oo lagu daray dhinaca yar ee naga maqan b square waxa la mid tahay hypotenuse-ka ama shakaalka oo la square gareeyay oo 5 la square gareeyay ugu dambeyn waxa soo baxay marka 4 hada square gareyso waa 16 way xagga u wareeji marka 25 laga jaray 16 waa 9 way 9 baa waxa ka saaranaa square root-ka b waxa la mid noqon doontaa positive and negative 3 inay positive tahay inay negative tahay maxaa ku garanaysaa marka x hadda yar waa dhinaca midig weeye dhinaca midig marka x waxay ka tahay positive side positive 3 way negative waxa naqanaa inuu opposite yahay 3 na ay tahay adjacent sin theta waxa la mid tahay marka opposite over adjacent waxaan la jeedaa opposite over hypotenuse oo ah negative 4 over 5 cosine theta waxa la mid tahay adjacent over hypotenuse oo la mid ah 3 over 5 tangent waxa la mid tahay opposite over adjacent oo ah negative 4 over 3 sin theta waxa reciprocal ku ah cosecant theta waxa la mid tahay taasaan rogeynaa sin qiimaheeda rog ratio-geeda rog waa 5 over negative 3 cosine theta waxa reciprocal ku ah secant theta waxa la mid tahay qiimihii cosine rog waa 5 over 3 okay cotangent theta waxa la mid tahay 3 over negative 4 tusaalaha afraad wuxuu leeyahay kii saddexaad oo kale kaliya reciprocal function bana la siiyay cosecant theta hadii ay negative 4 la mid tahay cosecant waxaan naqaanaa inay reciprocal ku tahay sin taas marka hadii aan haysano
cosecant sin waa heli karnaa kaliya qiimihii ma rogeynaa. Sin theta waxaa la mid noqon doontaa 1/4 oo negative ah. sidoo kale sin theta waxaan naqaanaa inay la mid tahay opposite of hypotenuse. qiimaha sare ee 1 ka ah waa opposite weeye, qiimaha hoose 4 ka ahna waa hypotenuse kii weeye. Okay, waana quadrant 4 ama waaxda afraad bay dhacada baa la yidhi. waaxda afraad waa bartaa weeye. waxaan nidhi xagasha mar walba x bay ku xigsan doontaa. halka waxaa kusoo miismi doona saddex xagal. 1 yaa ah opposite ka ah, 4 na yaa ah hypotenuse ka ah. hypotenuse waa 4, 1 kan waa maxay opposite ka weeye. hoos baa loo socdaa si waa negative 1 weeye. dhinaca saddexaad aan raadina annaga Pythagorean theorem adeegsanayna negative 1 oo la square gareeyay oo lagu daray dhinaca yar ee naga maqan b usoo qaado b square waxay la mid tahay hypotenuse ka oo 4 ah oo la square gareeyay. 1 ka soo wareeji 16 ku ka jarmi doonaa 15. 15 na waa maxay root ka kama baxo. sidaa marka qiimaha halkaas ee naga maqnaa b wuxuu la mid noqon doonaa root 15. yaa opposite yaase ah hypotenuse. opposite waa negative 1 ka, hypotenuse kana waa naqaanaa waa 4, root 15 kuna waa adjacent way. aan raadina marka functionska sin ka hormar. sin theta waxaa la mid noqon doontaa opposite of hypotenuse oo ah negative 1/4. cosine theta adjacent of hypotenuse oo ah root 15/4. While tangent theta waxaa la mid noqon doontaa opposite of adjacent negative 1/root 15. intayna reciprocalka u gelin waxaan ku dhufan doonaa maadaama hooseeyihii uu raad noqday ama root noqday, rootka hooseeya waa la baabi'iyaa, kor iyo hoos waxaan ku dhufanaynaa root 15. root 15 labada hooseeya haddaa isku dhufato ka meesha ka bixi doona 15 kaliya kusoo hari doona. negative 1 haddaa ku dhufato root 15 na negative root 15 bay noqonaysaa. sidoo kale waxaa kasoo bixi doona negative root 15/15. sin waxaa reciprocal ku ah cosecant. okay, cosecant theta waxaa la mid noqon doontaa ka rog 4/-1 oo la mid ah negative 4. cosine theta waxaa reciprocal ku ah secant. secant theta waxaa la mid noqon doontaa ka rog 4/root 15. waxaan soo niri hooseeyaha root inuu noqdo lama ogola. sidaa kor iyo hoos waxaan ku dhufan doonaa root 15. labada hooseeya haddaa isku dhufato waxaa ka baxay meesha rootka ka baxay 15 kaliya kusoo hari doona. halkaana sareeyaashan waa 4 root 15 baa kasoo baxaysa. okay, waa 4 root 15/15. tangent waxaa reciprocal ku ah cotangent. cotangent theta waxaa la mid noqon doontaa qiimihii asalka rog oo ah root 15/-1 negative 15 bay noqonaysaa. tusaalaha kan shanaad waxaan la siiyey 270. 270 na waxaan naqaanaa waxay dhacdaa axiska y axiska. sidaa marka goorta lagu siiyo xagal axiska dhacda oo tusaalahaan 0 ama 90 ama 180 ama 270 ama 360 goorta lagu siiyo waa tricky way, waa xeelad baa la adeegsadaa. ugu horeyn marka aan isla fahanno haddii nala siin lahaa tusaale ahaan xagal 225 ah ee diirinta buluuga ana waa radiuski weeye ama hypotenuse keeni weeye. maxaa dhacay marka hypotenuse keena hadduu usoo dhawaado 270 oo axiska dul dhacda? waxaa dhacaya waa maxay saa aduga qiyaasayso dhinacan saddexaad ee saddexaad ku leeyahay uu yaraan doona. hadda tusaale ahaan hypotenuse keena ama radiuska waa maxay uu ka fog yahay axiska 270 uu ka fog yahay. haddaan usoo dhaweyna maxaa dhacay marka uu sii yaraanaya u fiirso. okay, ilaa marka dambe waa maxay uu baaba'o. waa diirinta buluugan waa radiuskeena weeye. radiuska mar walba axisyada uu kasoo fogaado uu diilimaha kasoo fogaado madow wuxuu samayn karaa xagal. xagasha marka goortuu sameeyo saddex xagal baan samayn karnaa. laakiin goortuu dul dhaco axisyada waa maxay saddex xagal ma samayn karno. tusaalehaan haddeer haddaan soo wareejino halkaa bartamaha goortuu maray waa samayn karnaa, laakiin hadduu dul dhaco ma samayn karno. haddeer wuxuu dul dhacay 270 oo ah sidii tusaalahan lagu siiyey su-aasha. okay, 270 hadduu dul dhacay marka radiuskeena qiimaha ugu yar aan siin karno waa 1 weeye. kasoo qaado waa maxay inuu yahay marka 1. okay, hadduu yahay marka bartaa uu dhacay maxay noqonaysaa coordinatediisa. radiuskeena wuxuu dul dhacay y maadaama intaa buluugan ay 1 tahay macnaheedu waxa weeye qiimaha y-na waa 1 weeye, laakiin hoos baa loo socdaa oo negative 1 buu noqonaya. barta haddii la dhacna waxaan naqanaa qiimaha x ma jiro, x waa 0 weeye. marka bartaas goortaan taagannahay waa x oo 0 ah iyo qiimihii y oo 1 ah, sababtoo intaa buluugan baa 1 ah, negative 1 bay noqonaysaa. marka waxaan naqanaa marka 0 waa x weeye, negative 1 kana waa maxay waa y weeye. haddaan sawirno saddex xagalada aan marba quadrant dhigno maxaa dhacaya. tusaalehaan saddex xagal baa waxaan ku sawirnay quadrantigii koowaad ama waaxdii koowaad. xagasha halkaas dhacaysa x bay ku xigsanaysaa. halkaa hoose waa x, qaybtaas sare taaganna waa maxay waa y. xagasha iyo x maxay isku yihiin? waa adjacent, waa daris weeye. xagasha iyo y-na waa opposite. xusuusnow xagasha iyo y way iska soo horjeedaan. xagasha iyo x-na waa maxay waa adjacent weeye. haddeer triangle-keena wuxuu dhacay waaxda koowaad. aan waaxda labaad dhigna marka xagee ku samaysmaya horta xagasha waxay ku samaysmaysaa x bay ku xigsanaysaa waa niri waa halkaa marka
qiimaha taagan waa y qiimaha hoosena waa x waa garanayna angle-ka waxaa kasoo horjeeda y hadeer waa opposite x na waa maxay waa adjacent hadayna sidaas oo kale ahay haddana aan dhigno waaxda saddexaad triangle-keena xagee ku samaysmaysaa xagasha x bay ku xigsanaysaa oo halkaasa halkana x qaybtaana waa maxay taagaana waa y weeye oo fiirsa haddana angle-keena waxaa kasoo horjeeda y hadeer waa opposite x na waa maxay angle-ka adjacent bay u tahay okay haddana aan dhigno waaxda afraad haddaan dhigno xagee dhacaysa angle-ka x buu ku xigsanayaa x ba halkana qaybta taagana waa y weeye y waa opposite x na waa maxay adjacent u fiirsa marka triangle-kaada waax kastoo aad dhigto x mar walba waa adjacent y na waa maxay waa opposite weeye macnaheedu waa maxay waaxda koowaad dhig ama waaxda labaad dhig ama waaxda saddexaad dhig ama waaxda afraad dhig mar walba waa maxay x waa adjacent y na waa maxay waa opposite weeye halka marka waxaan haysanaa adjacent waa haysanaa oo 0 ino ah opposite na waa haysanaa waa -1 radius hypotenuse-keena waa maxay waa radius waa maxay hypotenuse-keena wuxuu dul dhacay 270 maadaama aan haysano opposite-kii adjacent iyo hypotenuse-ka oo radius-ka inoo ah radius-ka sababta aan 1 ka u siino maxay tahay iyo unit circle-kan adeegsanay muxuu -1 u noqon waayay hypotenuse-ka waxaan soo niri mar walba waa positive weeye hoos baa loo socdaa laakiin waa hypotenuse weeye marka aan adeegsano sin theta aan ku bilowno sin 270 degree intee la mid noqonaya marka sin waxaa lagu helaa opposite over hypotenuse opposite yaa inoo ah -1 okay hypotenuse na yaa ah 1 waa -1 over 1 marka oo ah -1 aan raadina marka cosine 270 okay cosine waxaa lagu helaa adjacent over hypotenuse adjacent yaa ku ah waa qiimaha x oo 0 ah waa 0 over 1 oo 0 ah okay tangent 270 iyadana degree maxay noqonaysaa tangent waxaa lagu helaa opposite over adjacent opposite yaa ku ah -1 okay -1 over 0 haddii shay 0 loo qeybiyay marka waxa soo baxay lama yaqaan marka waa undefined way oo reciprocal-kan u galeynaa marka reciprocal-ku way fudud yihiin sin 270 degree waxaa kii ku ah reciprocal cosecant rog marka maxay noqonaysaa marka 1 over -1 oo la mid ah -1 cosine waxaa reciprocal ku ah secant secant 270 waxay noqonaysaa ka rog waxay noqonaysaa 1 over 0 oo undefined tangent waxaa reciprocal ku ah cotangent 270 degree waxay noqonaysaa ka rog 0 over -1 0 over -1 waa 0 weeye undefined hadin markuu hooseeyo 0 noqday way undefined tahay tusaalaha kan lixaadkii orow ka duwan yahay waxaan la yiri waxa taaysa sin 300 degrees goorma inaan naqana 330 goorta halka ay dhacdo halka goorta la joogo waa 0 halkan goorta aan joogno waa 90 halka hadaan joogno waa 180 halka hadaan joogno waa maxay waa 270 330 xagee dhacaysa marka 330 macnaheedu waxa weeye 270 way soo dhaaftay waaxdii saddexaad way soo dhaaftay waxay maraysaa waaxdii afraad xagashana halkaas dhacaysa way laga soo bilaabo quadrant 1 ilaa halkaas baa 330 ah annaga marka intaas oo idil uma baahnin waxaan u baahanahay xagasha dhacda x axis-ka oo halkaas ah xagasha si aan u helno marka waa inaad dib u xusuustaa wixii la oran jiray reference angle-ka tusaalahaan haddii lagu siiyo 20 ama 20 degree oo quadrant 2 ah laga soo bilaabo quadrant 1 ilaa halka xagasha intee la egtay xagasha yar waa 20 degree laakiin quadrant 1 ilaa halkaas xagasha buluuga ah ma aha 20 ma way ka weyn tahay sidee ku helaynaa marka haddii xagasha tan oo fallaarta u taagan ay soo gaari lahayd diilinta madow 180 bay noqon lahayd laakiin ma soo gaarin waxbaa ka dhiman intee baa uga harsan 20 baa uga harsan macnaheedu 180 maadaama aanay soo gaarin oo ay uga harsan yihiin waa ka jaraynaa 180 20 ka jar waa 160 marka 160 sidee baan ku helnay waxaan ku helnay 180 baan ka jarnay quadrant 2 goorta u baahan tahay 180 baa ka jaraysaa way ka waran hadii xagashu dhacdo quadrant 3 marka kan waa maxay 180ka way soo dhaaftay laakiin haday ma soo gaarin way soo dhaaftay macnaheedu waa maxay waxba dheer 180 maxaa dheer marka 20 180 20 dheer macnaheedu waxa waa ku dar weey 180 20 ku dar waa 200 200 see ku helnay marka quadrant 3 waxa lagu helaa 180 baa ku daraysaa 180 ma 20 ku darnay quadrant 3 waxa la sameeyaa 180 ku dar quadrant 4 imo hadii 20kii laftiisii uu dhaco quadrant 4 xagasha min quadrant 1 ka soo bilow ilaa halkaas maxay noqonaysaa marka way ka weyn tahay 20 sabab marka quadrant 4 goorta dhacdo hadii ay halkaas soo gaari lahayd 360 bay noqon lahayd laakiin ma soo gaarin wax yar baa uga harsan oo 20 ah waxba uga harsan macnaheedu waa maxay waa ka jar weey waxba dheer macnaheedu waa maxay waa ku dar 360 inay soo gaarto waxa uga harsan 20 360 20 ka jar waa 340 xagasha weyn ee halka ka soo bilaabanaysa fallaarta u taagan
waa 340 way quadrant 4 waxa la sameeyaa 360 baa laga jaraa xagasheenu marka xagee dhacday annaga waxa dhacday quadrant 4 goorta la joogo maxaa niri 360 ka jar halka ka soo bilow ilaa halka soo gaar waa 330 360 ma waxaan ka jaraynaa 330 si aan u helno taayir 360 waxa ka jartaa 330 waa 30 marka waa helnay halkan waxa ku subeysmaayay 3 xagal taa macnaheedu waxa weeye marka 330 iyo waxa isku mid ah 30 oo ah quadrant 4 waxa isku mid ah marka sin 330 degrees iyo sin 30 oo dhacda quadrant 4 waxaan naqanaa marka sin 30 oo quadrant 1 ah inay tahay 1/2 sin na waxa lagu helaa sidaba opposite over hypotenuse 1 ka kan waa opposite 2 ga waa maxay waa hypotenuse waxa hadda aan haysano waa sin 30 oo quadrant 1 ah oo aan hore u soo baranay annagana hadda maxaa laga rabaa sin 30 oo quadrant 4 ah oo u dhiganta sin 330 way marka haddaan rabno inaan raadino sin 30 oo quadrant 4 maxaan sameynaynaa saddex xagalkan aan buuxinaynaa saddex xagalka marka opposite kiisa iyo hypotenuse kiisa aan buuxinaa opposite ki waa haysanaa hypotenuse kana waa haysanaa hypotenuse ka waa 2 way opposite kuna waa maxay waa 1 laakiin hadda waxa ogaataa diilintii hoos baa loo socdaa way hoos hadii loo socdana waa negative so negative 1 way way marka sin 30 oo quadrant 4 maxay noqonaysaa sin 30 oo quadrant 4 waa opposite over hypotenuse waa negative 1 over 2 marka opposite ki waa negative 1 ah hypotenuse kuna waa maxay waa 2 waxaan soo niri sin 30 iyo oo quadrant 4 iyo sin 330 waa isku mid marka waa helnaa hadda tusaalahan toddobaad waa kii lixaad oo kale weeye kaliya xagashay waxa lagu cabiray radians waxa la yiri waxa raadsa tangent 5/4 iyo all trig fractionski gooran hawsha aan fududeyno degrees aan bedelanaa 5/4 haddaan rabno inaan degrees u bedelno waxa lagu dhuftaa 180 over by hore loo soo bartay okay by isu saar 180 hadaa fa oo qeybiso waa 45 ba waxaan ku dhufanaa 5 waa 225 taasoo macnaheedu yahay tangent 5/4 waxa la mid tahay tangent 225 xagee dhacda marka meesha dhacaysan oo ogaano halka hadii la soo gaari lahaa 270 min noqon lahayd 225 waxaan naqaanaa inay ka yar tahay 270 180 ay ka weyn tahay macnaheedu waxa weeye quadrant 3 ama waaxid saddexaad bay xagasheen dhacaysaa 225 macnaheedu waa maxay marka laga soo bilaabo quadrant 1 ilaa halka laga soo gaarayo baa waxa ah 225 anaga intaas idin uma baahanin waxaan u baahanahay xagasha dhacda x axis ka ku xigta okay xagasha yar si aan u helno marka diilinta madow iyo diilinta guduudan u dhaxaysa x axis ka dhexdooda ah 180 waa la soo dhaafay 225 180 intee bay dheer tahay waxaan naqanaa 225 inay 45 dheer tahay macnaheedu waxa weeye xagashaas waa 45 225 180 kala jar triangle keenni waan sameysanay taa macnaheedu waxa weeye marka waxa isku mid ah tangent 225 iyo waxa isku mid ah tangent 45 oo laakiin quadrant 3 ah waa isku mid ah hore waxaan naqaanay tangent 45 oo quadrant 1 inay 1 la mid ahaan jirtay 1 macnaheedu waxa weeye 1/1 tangent waa opposite of adjacent 1 ka sareeyaha ah waa opposite 1 ka hooseeyana waa adjacent way marka aan buuxino saddex xagalkeena okay halka waxa noqonaysaa dhinaca x ta 1 oo adjacent ah opposite kuna waa maxay waa 1 way marka waa inaad garataa ma positive ba mise waa negative x ta dhankeeda eeg bidix baa loo socdaa si awgeed waa negative waydana eeg hoos baa loo socdaa iyaduna waa negative way haddaan intaan helnay dhinaca saddexaad dhamaystir dhinaca saddexaad shakaalkaas ay u dhamaystiri kartaa waa Pythagorean theorem-ka adeegso -1 iyo -1 square gare oo isku dar waa 2 waxa ka saartaa square root-ka waa √2 way kama baxayo saddex dhinac way noo dhameystiran yihiin -1 ka kan buluuga dhinaca buluuga xiga waa opposite -1 kana waa maxay waa adjacent way aan dhamaystirna marka okay tangent waan ku bilaabnaa tangent 5/4 oo la mid ah tangent 225 ama tangent 45 waxa la mid noqonaysaa opposite of adjacent opposite yaa ah -1 adjacent yaa ah -1 over -1 waa 1 way sin ku xiji mar walba sin waxa lagu heli jiray opposite over hypotenuse opposite waxa -1 hypotenuse kana waxa ah √2 waxaan hore soo baranay in hooseeya haduu root noqdo in la baabi'iyo kor iyo hoos waxa ku dhufataa √2 hoos hadda √2 ku dhufato waa 2 -1 hadda √2 ku dhufatana waa -√2 cosine 225 ama cosine 45 oo quadrant 3 ah maxay noqonaysaa waa adjacent over hypotenuse adjacent waa -1 hypotenuse kuna waa maxay waa √2 sidoo kale hooseeyaha rootka baabi'i reciprocal kan u galeynaa tangent waxa reciprocal ku ah cotangent cotangent 225 ama cotangent 45 oo quadrant 3 ah taa un rog -1/1 oo 1 ah
sin waxaa reciprocal ku ah cosecant 225 ama cosecant 45 oo coordinate 3 ah waxaan rogaynaa kaasaan rogaynaa root 2 over -1 or negative root 2 ah negative kan raacay cosecant waxaa reciprocal ku ah secant 225 ama secant 45 oo coordinate 3 ah waa root 2 over -1 oo negative root 2 ah hada billahi at-tawfiq